السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheedaanu jecelnahay meel kasta aad ku sugantiin aad baan idin salaamaynaa waxaana idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan aad ugu xidhan tihiin channelka ururka hablaha aragga naafada ka ee Tafbalan Girls. magacaygu waa Xamdi Cabdi Sogsog waxaana ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka daawade marka koowaad muuqaalkan daawato fadlan sii share garee uu gaaro dhammaan walaalaha afka Soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaan like iyo subscribe-tana ha naga ilaawin wixii talo iyo tusaale aad nala wadaagaysana commentiga noogu reeb inta ay taariikhdu tahay 2020 bishii 12aad 27keedii maalinimo axada waxaanu soo booqanay qoys haysta 4 caruur ah oo aragga naafada waliba mid ka mid ah caruurtani waxa uu sii raacsiisan arag la'aanta maskax la'aan iyo cagal la'aan waqti xaadirkan waxaanu ku sugannahay hoygii ay kaga noolaayeen magaalada Arabsiyo haddaanu nahay ururka hablaha aragga naafada ka ee Tafbalan Girls annagoo kaashanayna walaalo muxsiniina oo dalka dibadiisa ku sugan waxaanu maanta soo gaarsiinay sida idin wada muuqataba raashin dhammaystiran oo kala ah shub bariisa shub daqiiqa shub sankora kartoon baasta caagad saliida milixdii shaahi madoowa iyo saabuuntii maadaama lagu jiro xilli dhaxameedkii waxaanu soo gaarsiinay agabkii laga huwanayay dhaxanta 4 buste 4 go 4 barkimo iyo xabad cawwa taagan waqti xaadirka waxaan ku sugannahay hoygii ay kaga noolaayeen magaalada Arabsiyo waxa barbarkayga taagan maamada caruurtaasi dhashay maama xaashi maama ku soo dhaweynaya hadaan nahay teamka TBG bal maama waxaad nooga warantaa 4 caruur ee walaalaha ah xaaladooda ma isku mar bay arag beeleen ma mid walba markuu dhasho arag beelay bal faahfaahin naga sii mid walba markuu dhashay arag beelay wayna ku dhasheen maxay waxa weeyaan amarka Ilaahay marka waxa weeyaan wax kale oo sabab u noqday ma jirto waa amarkii Ilaahay weeyaan marka midba kol buu dhashay midba kol buu kiyo indhuhu sida yihiin baa la arkay marka waa kuwaas oo 4 ciyaala ka u daran waxa weeyaan ka xiskiisina la labadiisii lugoodna aan ku soconaynin hooyay aabay midna aan lahayn weeyaan ka u sii daran marka waxa weeyii waa inantii ugu weynayd caruurta iyadu waxa weeyaan wax ka meel kale wax ka qabtaa ma jirto inay iftiin yar bariiqsanaysaad moodaa oo dhulka iftiinkeegu iftiin maaha waxba iska shaabahan tahay oodaha amar Ilaahay bay kaga baydhaa marka iyadu waa taway wax kale oo maanta in oo kale meel kale ku leedahay ma jirto labada yaryar ciyaalihina way iska caafimaad qabaan sida kale laakiin aragga indhaha bay ka shaabahan yihiin iyaguna iyaguna markii aanu shitaabo ka qaadnay way bariiq maran oo xogaaya ayay leeyihiin iska ciyaaraan marka iyagu aragtidoodu waa bariiq yaroo maran ayay leeyihiin waxba lama kala saari karayo indhahooguna waa sida cirka ayay u eegyihiin sida cirku yahay ayay u eegyihiin dawaa alxamdulillah Ilaahay wixii uu kugu keenama Ilaahay baa lagu shukriyaa Ilaahay baa lagu shukriyaa wax dhakhtar mid la xiriirsiiseen maamo wax dhakhtar mid baa la xiriirsiiyeen arday sababa bil kula maqnaa ilmaha yarna waxay yiraahdeen hadii aanu anagu ku guuleysan weynay oo xuubka waxa buluugaasi aanu maxay ka sifeyn weynay waxay noqotay buu yiri inaanan ku guuleysan waa labada yaryar mid ahaan waxa weeyaan ka roon labada yaryar ka roon markaas sidii baanu hadana ku soo noqonay dabeetna halkan aanu keenay
laakiin maxay ahayd caruurta yaryar wax dhaqtaraho sidaasoo maanta dee amba wax ka qabta diba waxa la yidhi maxay ahayd halkan waxba Somaliland dee wax dhaqtaraho saasoo wax laga qaban karo ma jirto markaa waxay dhulkii kale ee fogaana dee wax adduunahoo maanta aanu ku geyno ayaanu walaal u weynay wax adduunaanu ku geyno walaal u weynay markaa waanu tahri kari weynay dee wax maanta aanu intaanu ku qaadno dee aanu maanta kaga soo samirnana waanu tahli weyn markaa dee halkaasaanu ilaahay yaanu maanta anagu dee ilaahay baanu ku shukriyeynaa halkaa aanu ku hayno baanu ilaahay waan ugu mahadnaqnaa kolba sida yihiin way maamo afarta caruura sidaan arkayno imaka noo muuqata ma maxay hayday iskuma dhawa lababa dhan bay isugu xigaa sax labada yaryar waa u wada waxaan maxay hayday caruura way ugu yar yihiin labada yaryar imsa sana jiraan mid wuxuu jiraa waxa weeyaan mid waa 10 jir midna waa 7 jir صح inankii anta weyna inantu waxa weeyaan de maanta waa hablaha 20 galiya ka yarina de waa 17 dhaqaatiirta markii aad la xiriisay maxay ku sababeeyeen in aragooda ku waayeen waxa weeyii gabilay dhakhtarka noogu hangeeyay kuwa yaryar gabilay baa iigu dhawaa markaa wuxuu yidhi annagu waxaan cilmigan inankii aanu u geynay wuxuu yidhi annagu cilmigan ay ku soo dhasheen wax awoodahoonu uga qaban karnaa ma jirno buu yidhi waan u geeyo markaa tayar baan u geeyo oo aan idhi bal dee horta ku hubso halkan horta dalka wax kaga hubso isagii baana gudbiyey oo na geeyey maxay ahayd Ethiopia markaa halkan waxay noqotay inaana halkan waxba laga qaban karin bay halkan noqotay aragti la'aanta wax xanuun oo kale u dheer ay ka cabanayaan maanta oo kaar ku hayo aan ka seexan karin ma jira ka laxaad kala waruma hayo oo de qof aan hooyo ma sheegan karo isagu dhibtiisu waxaan ku weydiiyay mar hadduu hooyo ilahayn mar hadduu aabbo ilahayn kaasi dhibtiisu ilaahay bay ku xidhan tahay qoyskan waxa afartan caruura ee araga naafaka ah ma jirtaa cid gaar ah ku xidhantiin oo idinka gacan siisa in noqoto dhinaca dhaqaalaha in noqoto waxbarasho way dhigan karaan maskaxdoodu way qabaan waxbarasho cid idinka gacan siisa ama idinku baadgeyseen ma jirto ma jirto gurigu iska joogaan gurigu iska joogaan ma jeclaan lahayd inaad wax barto maadaama maskaxdoodu qabaan waan jeclaan lahaa inaan han waxbaro aad iyo aad baan u jeclaan lahaa laakiin iyaga oo waxaan doonayaa iyaga oo wax biriiqsanaya horta ilaahay anigoo isku xidhaya inaan ka samro waayahay imkana waxaan ku soo dhaweyn doonaa qasnajiga ururka hablaha aragga naafada ka ah Tafbalan Geralis walaashii Saacada Maxamed Cabdiraxmaan oo barbarkayga taagan oo guddoonsiin doonta qadar lacag oo 500 laana aabaha dhalay caruurta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو سعادة محمد عبد الرحمن كان مد أورك هبلها أرجعنا فذكاه تفبلين جراليس هنا هانتي ما أنت وحنا نصاب وخنيس إذا حمد عبد سوق شاكتي عرور أرجعنا فكا وأفرا أفرت عرورة أو كنا العربسية runtii waan ku faraxsanahay inaan maanta soo boqano caruurta aragana fadaka ee nala midka caruurtaas oo aanu maanta u keenay raashinkii saddexdii haafee raashinaha bustayaashii iyo cawihiiba imikana waxay ag jooga aabahood Ismaaciil oo aan ku wareejin doono lacag 500 oo laan ah adeer waxa 500 laan ah iga guddoon sanadii waan ka guddoomay horta mahad ilaahay baa iska leh wax walba ilaahay baa bixiya inta
aragga naafada ka ah iyo inta meelo kale oo fara badanba naafadu way badan tahay naafada ka ah waxaan leenahay ilaahay gargaar khayr qaba ha u keeno waananu idinka guddoonnay deeqda yar ee lacagta ah ee aadna soo gaadhsiiseen waanaad ku mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adeer aad iyo aad baad u mahadsan tahay aamiin baan ku leenahay adeero ducadaadana allah noo aqbalo adeero waxaad haysataa 4 caruura oo aragga naafa ka ah mid waxa u dheer baa naafanimadii aragga waxa u dheer naafanimo kale oo dhinacii cagaha iyo dhinacii maskaxda adeero maadaama intaas oo caruura haysato maxaad ka codsanaysaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan in lagu qabto waxaan ka codsan lahaa walaal caruurta waxa weeye caruurtu 3 ka mid ah araggoogu ma wada tagin wax way arkayaan marka in la naga taageero sidii dhakhtar dibadeed loogu eegi lahaa wax looga geysan lahaa walaalaha Soomaaliyeed in badan oo horta runtii annaga caruurteedana shaashadaha way ku cusub tahay in badan oo gacan ka soo geysatay oo waliba jaaliyadaha dibadda u badanina way jirtaa laakiin haddana waxa laga yaabaa waxaana soo gaadhay inaanu ahayn wax dibad geyn kara haddii dibadda la awoodi waayo waxaan ka codsanaynaa dawladdu in caruurta yarar sidii wax loo bari lahaa ay naga caawiso waxbarasho u heli lahaayeen haye saddexda maskaxdooda taamkii haa